mogtahay in tareenka xawaaraha sare ee Japan ee lagu magacaabo bullet trainku uu badbaadiyay nolosha in ka badan 10,000 oo qof ha dabcan waa dhab daawade intii lagu jiray sanadii 2011 markaasoo dhulgariir xooggan ku dhuftay dalka Japan ayaa tareenka lagu magacaabo bullet trainku ahaa mid socda oo ku jira shaqadiisii maalinlaha ahayd wuxuuna ku socday xawaare dhan 200 oo mayl saacadiiba tareenkan xawaaraha sare ee Japan waxa lagu rakibay dareemayaal gaar ah oo uu ku ogaan karo dhulgariirka marka dhulgariirku bilaabmo hirarkiisa ugu horeeya ee laga dareemo dhulka dareemayaashani waxay si degdeg u gartaan halista tareenkuna wuxuu isla markiiba dirayaa fariin joojisa fariintaasina waxay gaaraysaa oo kale 330 tareen oo kale 2 ilbiriqsi gudahood korontada dhammaan tareenada laga wada jaraya waxaana si toos u shaqeynaya biriga degdega si loo joojiyo tareenadan loogana hortago shilalka alle ayaa wax badbaadiyay waxna dila balse farsamadan casriga iyo foojignaantan degdega ee ay leeyihiin tareenadani ayaa sabab u noqotay in ka badan 10,000 oo qof inay ka badbaadaan khatartaas daawade haddaba daawade adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo farsamadan casriga ee ay leeyihiin tareenadan dalka Japan sidii ayaad u aragtaa qaybta kommentiga hoose iigu sheeg ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile-ka saarana aad subscribe dhaado